gabdhuhu waa saddex. gabadh waa gabadh muuminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan, cafiifada oo dhowrsoon. midda labaad waa weel buuri, waa weel xaggana wax ka cuni, xaggana way kaaga dhali buuri, xaggana waxbaad ka siin, calooshana ilmay kuugu qaali, deedna ubadka bay korin buuri, wax tar kalama la buuri. waa naag iga tag kaa tegi mayso, naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso, naa ubadka kori ma korinayso, naa aqalka fadhi ma fadhiyayso, naa ilaahay ka baq ilaahay ka baqi mayso, naa sidan iska daa iska dayni mayso, naa iga tag kaa tegi maayo, naa nabad ku joogi mayso. kii ilaahay adduunka cadaab ula doonu ilaahay qoorta u sudhaa buuri. cali bin abi aalib buu ahaa. gabdhaha markuu ka warramayay wuxuu uhi gabdhuhu waa saddex. muuminad, gabadh waa gabadh muuminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan, cafiifada oo dhowrsoon, hayina dabacsan, layinatun oo aad u dhibrinaysa wax walba. gabadh hayina mutiica wey, ninkayga adeecaysa, layinatun oo dabacsan, zaman adag markuu ninkayga la soo darsana ninkaygay u kaalmaysaa buu yidhi. waxay ku tidhaahdaa xaaladdan adaga maanta nala soo daristay waan ka baxaynaa insha allah, waan ka baxaynaa, adkayso, u dhabar adayg. waxa yaruu u dhiibtay u yaryarayn, isagay qalbiga iyo niyadday u dhisi. waxay leedahay war waa adduunya, waxaan in adduunyadu ku qaadane, meeshaan u soconna waa aakhiree, imtixaanka adduunyadu u dhammaadaaye sabir bay leedahay ninkeeda. mid waa taa buu yidhi. midda labaad waa weel buuri, waa weel xaggana wax ka cuni, xaggana way kaaga dhali buu yidhi, xaggana waxbaad ka siin, calooshana ilmay kuugu qaali, deedna ubadka bay korin buuri, wax tar kalama la buu yidhi. midna wuxuu yidhi waa khillun qumal. khillun qumal khillun qumal waxay ka dhigan tahay berigii hore maxaabiista jeel lagu xidha ma jirayn. ninka xabsi marka nimka berigan xabsiyaa jira, berigaa ninka la soo xidhay baa la yidhi afarta addin baa laga xidhayay, geed baa la hoos dhigayay, timaha ku bixi jiray, injirtaa markaa jirkiisa ku dhalan jirtay, way dareeri jirtay. markaa gacan uu injirtaas kaga qabto uu iska dila ma haysto. maanta oo dhan isagoon bay cuni injirtaasi, halkaabay ka cuni, halkaabay ka cuni, halkaabay ka cuni. wuxuu ihi dumarka qaar wuxuu ihi waa khillun gumal, waa injirta ninka maxbuuska dul fadhido gacan uu iskaga qabtana uunan lahayn ayay ninkayga ku noqotaa buu yidhi. kii ilaahay adduunka cadaab ula doonu ilaahay qoorta u sudhaa buu yidhi. waa naag iga tag kaa tegi mayso, naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso, naa ubadka kori ma korinayso, naa aqalka fadhi ma fadhiyayso, naa ilaahay ka baq ilaahay ka baqi mayso, naa sidan iska daa iska dayni mayso, naa iga tag kaa tegi maayo, naa nabad ku joogi mayso. mithaalkaasuu ka bixiyay cali bin abi aalib dumarka. kole gabdhaheenu insha allah waa kuwa wanaagsan insha allah dhahda ila way nala dhegaysanayaan iyaguna khayrka moogta. ta koobaad baad markaa noqonaysaa mu'minad ilaahay ku xidhan, muslimad hoggaansan oo sharciga ku dhaqmaysa, oo gurigeeda aan ka baxayn, oo wixii ninkeeda ilaahay u soo dhiiba halkaa bismilla ku leh, cafiifad dhowrsoon oo xataa baahida ay qabta ninkeeda ka qarsanaysa. ma aha inaad dadka kale maaha waxaa la doonaya wax ka qarsato, macal ninkaaga ku qabaa la doonaya baahidaada inaad ka qarsan karto. haddaad ka qarsan kartid ninkaaga, baahidaada ka qarso, baahidaada ilaahay u sheego. hayinatun waa gabadh dabacsan, layinatun oo jilicsan. zamanka adag markuu ninkayga la soo darsana ninkaygay garab u noqotaa. waad ka baxaynaa, ilaahay baan haysanaa, hawalwalin. xadiid kale waa kii nebigu lahaa, allah u naxariista buu nebigu yihi ninka habeen salaataleylka u kacay, xaaskiisiina kiciyey, hadday iska diidana biyo yar ku shaydhiyey. gabadha muuminadda ee iyadana habeenka salaataleylka u kacday ee ninkeediina kicisay, ee hadduu diidana biyo yar ku shaydhisayna, taana allah u naxariista buu rasuulku yidhi. ducada nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ma aha duca sabaqat hamoodin inay socotay hamoodin. qof kastoo xadiiska nebiga ku dhaqma ducadaasi way ku dhacaysaa.
lidalika mujtamac wanaagsan allah inaga dhigo amiin hada qof wanaagsan usrad wanaagsan mujtamac wanaagsan sidee ku noqonaysaa markaa waa laga shaqeeyaa waa la diyaariyaa waa la dhisaa mujtamac wanaagsan iminka dadku zamankan waxay yaqaanaan sida loo dhiso wadooyinka sida dhakhtarada loo dhiso sida beldinada loo dhiso sida warshadaha loo dhiso sida xoolaha loo dhaqo sida dhulka looga soo saaro khayraadka ku jira laakiin bani aadanka sida loo dhiso ma yaqaanaan lidalika u fiirso waddan walba madaxdu markay doorasho ay galayaan waxay doorashada ku galaan erayo mataqaana isticmaalaan dalkan dhisayna horumar maxaa ka qabanaya dalka wadooyin baan nii samayn maxaa ka qaban waddanka oo dhan baan nadiifin maxaad ka qaban tacliintaan kor u qaadi maxaad ka qaban dhakhtaradaan bilaash ka dhigi maxaad ka qaban shaqo abuur baan samayn maxaad ka qaban faqriga saboolnimadaan la dagaalami nin madaxa oo fagaaraha isla soo taagay ma maqasheen dadku siday ku hagaagi lahayn baan ka shaqayn ma maqasheen samicta ma jira laa muslim walaa غayr muslim dadkan hagaajin mujtamacanan la ii dooranayaa mujtamac beentu ay ku badan tahay weeyaan mujtamacanan ku dadaalayaa siday run sheegayaal u noqon lahaayeen nin madaxa wasdaale welig ma maqasheen ma jirto limaada maxay u odhan waayeen lana farsamada ma hayaan iyaku waa fanni cajiiba fanniga waxaa iska leh alanbiya calayhim assalaam uma atbaaca alambiya baa iska leh dadka hagaajinteeda dadka inay la islaaxiyo waa fannigii nebiyadu ay lahaayeen cid kale fanniga ma leh ile nebiyada u fiirso nebi ba adduunka iman dadkoo wada been sheegaya buu iman dad buu wuxuu soo saaraya dad run sheegayaal ah dadkoo wada daalimiina buu dhex iman dad cadaalad samaynayo cadaalad falaya buu ka soo dhex saari dad wada khawanuu iman dadkii khiyaanada badnaa uu ku dadaali dad wada ammaanalu ka soo dhex saari dad wada jahliga oo jahaluu dhex iman dadkii jahliga badnaa buu ku dadaali dad wada culumuu ka soo saari dad wada akhlaaq xun buu dhex iman dad wada akhlaaq wanaagsan buu ka soo dhex saari dad been ku wada dhaqmaya buu dhex iman dad wada rusheegayaala buu ka dhigi maxaa bedelaya markaa dadku hagaajinaya shareecadda iyo diinta nebiyadu ay la imanayaan ayaa dadku markaa ku hagaagaan markaa nebi baa la soo diray waxay ka dhigan tahay shaqadii dadku ay ku hagaagayeen ayaa nebiga ilaahay u soo dhiibay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya halka maanta aan leenahay dalka ayaan hagaajinaynaa waxa ka awlaysan in la yidhahdo dadkaan hagaajinaynaa aladiina in makannaahum fi lardi maxay samaynayaan aqaamuu salaata wa aatow zakaata wa amaruu bilmacruuf wanahaw can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur ummad ay isticmaar u dullaysanayey markaan ka qaadna baa ilaahay yidhi isticmaarkii iyo dulligii iyo maaragtaane dulmigii lagu hayay aan ka qaadna baa ilaahay yidhi maxay qabanayaan u horraysa laga rabaa inay qabtaan salaaday oogayaan baa ilaahay yidhi zakaday la imanayaan ay bixinayaan salaaddu waa xaqi ilaahay zakaduna waa maxay waa xuquuq alcibaad weeyaano dadka waddankaa ku nool aqniyadooda oo keliya haddii zakada laga qaado masaakiintooda lagu celiyo qof baahan oo miskiina waddankaa lagu arki maayo dadku wada aqniya wada maalqabayn bay noqonayaan